aynu ku horeynay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Siciid Cabdilaahi Deni ayaa xalaytay isagoo ku sugan magaalada Galkacyo ka hadlay habkii ay baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya xilka uga qaadeen ra'iisul wasaarihii Soomaaliya Xasan Cali Khayre isagoo ku tilmaamay hab sharci darro ah wariyaha VOA Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixinta noo soo diray madaxweyne Siciid Cabdilaahi Deni oo xalay saqdaxay soo saaray hadalkan ayaa ka hadlay dhinacyo kala duwan Deni ayaa sharci darro ku tilmaamay nidaamkii ay baarlamaanka ku rideen ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo xukuumaddiisa isagoo tilmaamay inay ahayd mid qorsheysnayd oo lagu burburinayay shirkii Dhuusamareeb dhawaan ku soo dhamaaday waxa dhacay wax aan ku tilmaami karno inuu silsilaal siyaasadeed ahaa oo anagu aanan filanayn ka Puntland ama shakhsiyan xogtiisana aanan war u haynin laakiin markaan ilaa shalay ilaa maanta ilaa xalay aan dib u akhrinay waxyaabihii dhacay doodo badan aan ka galnay noo soo baxday wixii halkaa ka dhacay inay ahayd wixii quruxda badnaa ee ka soo baxay shirkii Dhuusamareeb iyo diiladii la qabay ee ahaa in hore loo socdo wax lagu xagaldaacinayo oo la rabo in lagu burburiyo arrintaas waxaan runtii mas'uuliyaddeeda saaraya madaxweynaha jamhuuriyadda maxaa yeelay wixii uu noo sheegay iyo wixii aan ku heshiinay oo dhan waxaan ahayn ayuu ku dhaqaaqay habeenkii shirku dhacayna anagoo la nimid niyadsaday khudbadihii dadkuna ay u ekaayeen kuwo isu soo dhaweyn ah khudbadiisii waxay hordhac u ahayd in wixii meesha aan ku gaarnay uusan raalli ka ahayn ajendayaal kaleetana u wato xilka sida sharci darrada looga qaaday oo la yiri waa laga qaaday waxay uu sababsaday in uu wixii madaxda dawladda federaalka iyo dawladda Soomaaliya ay dawladaha xubnaha ka ay ku heshiiyeen inuu daacad ka ahaa inuu fuliyo cidda ka qaaday oo arrinta ka dambeysana waxay u muuqanaysaa wixii meesha laga heshiiyay inaysan daacad ka ahayn oo ajenda kala wadatay madaxweyne Deni ayaa tilmaamay in la jibiyay shuruucda dalka u yaalay nidaamkii loo maray xilka qaadistii ra'iisul wasaaraha waxaan rabaa inaan dhowr arrimood halka aan ka cadeeyo baarlamaanka wixii shalay uu sameeyay waxa muuqanaysa inuusan marin habraacyadii ra'iisul wasaaruhu xilku waa meerto shalay waa la magacaabay baarlamaanka ayaa ogolaaday baarlamaanku awood uu leeyahay inuu ka qaado laakiin wixii shalay meesha ka dhacay waxay ka hor imaanaysay dhammaan shuruucdii dalka u deganayd iyo habraacyadii lagu yaqaanay marka la rabo in la eedeeyo ra'iisul wasaare in xukunka looga qaado waxaa iyadoo oonan eedeyn loo soo jeedin iyadoo ajendaha aan lagu darin iyadoo oo aanan loo codaynin ayuu gudoomiyaha baarlamaanka wuxuu ku dhawaaqay in uu xilkii uu ka qaado waxaase cajiib ah oo kasii daran in madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ku celcelin jiray waxaan ilaalinayaa dastuurka uu si degdeg ku aqbalay arrintaas sharci darrada ah oo ay muuqato in uu buriyay qodobo dastuuriya oo runtii dalka u deganaa oo la oran karo dastuurkii uu ku xadgudbay waxaa intaa ka daran isla waqti yar oo kooban madaxweyne ra'iisul wasaarihi oo Dhuusamareeb ka tegid inuu wareegto ku soo saaray in uu xilka sii hayn doono ra'iisul wasaare ku-xigeenka wuxuu madaxweynuhu si cad ugu tuntay qodobka 103 ee dastuurka oo cadeynaya marka uu ra'iisul wasaaruhu xilka laga qaado ama uu iska casilo in uu xilka sii wadayo ilaa uu la wareegayo qofka kale ee la soo magacaabay marka inta la isku soo horiyo waxa aad u muuqanaysa madaxweynuhu inuusan diyaar u ahayn inuu dalka doorasho geliyo madaxweynuhu inuusan diyaar u ahayn inuu dalka si dimuqraadi u maamulo wuxuu cadeeyay in uu wareegto uu rabo inuu ku maamulo wuxuu cadeeyay inuu sharciga dastuurka uusan ixtiraamin oo uu ku tumanayo siyaasiyiinta Soomaalida iyo madaxweynaha Soomaaliya ayuu baaq u diray waxaan ka xumahay siyaasiyiinta qaybtood inay u qaateen ra'iisul wasaare tagay iyo ra'iisul wasaare la keenay oo xusuuduub loogu jiro cidii noqon lahayd arrintu ma aha ra'iisul wasaare baxay iyo ra'iisul wasaare yimaad oo ay dhici jirtay hadii hore u dhici lahayd marxalad aan xasaasi ahayn dibna ma keenteen laakiin marxaladan hadda waxa ku soo beegmay waa marxalad ka duwan aragtidaas marka waxaan ugu baaqayaa dhammaan siyaasiyiinta dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka ah iyo mas'uuliyiinta dawladda wixii dhacay waa dhaceen caanadaatay dabada la qabtaa khaladka cidii gashana inay qaadato aqligu inuu soo noqdo dalka meesha ku socdo in tala intii hore ka badan la geliyo waan ka xumahay niyadii wanaagsaneyd ee dawladaha iyo dawladda Puntland ay haysay in dhabarjabin lagu sameeyo waxaan madaxweynaha dawladda federaalka ah baaq ugu dirayaa
inta dhiman inuu dalka uu u naxo oo u turo oo uusan gaarsiin meel aan hadhow laga soo qaban karin dadka Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa in ay gacan ka geystaan in dalkii la badbaadiyo. hadalka madaxweynaha Puntland ayaa yimid kadib shir aan caadi ahayn oo xalay magaalada Gaalkacyo uu kula yeeshay golihiisa xukuumadda. Nuux Muuse Dirjeed, VOA, Garowe.